kusoo dhawow Hanfada Production. waa ku dhawahay Hanfada Production Cabdiqafaar qalqaali ah aad u weyn si wanaagsan ugu dhawahay cabda. aad baad u mahadsan tahay aniga iyo dadweynaha ku dhageysanaya magacaaga saddexan iyo halkii aad ku dhalatay bal nala wadaag. magacaygu saddexan Cabdullaahi Cabdi Habas baa la yiraahdaa. waxaan ku dhashay gobolka Mudug magaalada Gaalkacyo gaar ahaan xaafad la yiraahdo Hormar oo xaafadii qadiimiga ahaa gobolka magaalada Gaalkacyo diiwan degana hadda. aad baad u mahadsan tahay adigoo 2 daqiiqo ku soo koobaya taariikhdaada sports yaraantaadii halkii aad ku soo bilowday bal aniga dadweynaha nala wadaag. Cabdiqafaar aad baad u mahadsan tahay Hanfada Production waa ku dhawahay si weyn aniga kubadda yaraanteedii baan bilaabay waxaana garoomada aan soo barbaaray oo yaraanteeda aan ku soo baxay waxa kamid ah garoon la yiraahdo Wembley oo xaafadeena Hormar ku yaalo gaar ahaan xaggaas iyo meesha loo yaqaan Cirjiife xaafadii lagu dawaalan jiray Cirjiife dhanka wuxuu ka yahay waqooyiga garoonkaas soo barbaaray oo ilaa yaraanteedii dhalinyaro badan oo aan saaxiib nahay oo haddana kubadda ka fadhiistay oo haddana qaar kubadda dheelo baan yaraanteedii ku ciyaari jiray oo aan ku soo baxay inkastoo aan xaafadaha ku dheeli jiray oo in aan kubadda aan heer ka gaaro oo meel wanaagsan ka gaaro waxa ugu soo guubaabiyay oo ugu gacan qabtay oo mar walbana aan xusayaa macallinkayga ugu qaaliga ahaa macallin Mataan Deerow oo mar walbana jecel dhalinta sportska gobolka Mudug in ay kubadda ku baraarujiyo soo gacan qabtay garoon la yiraahdo waxa jira asagana yaraanteedii aan ku dheeli jiray oo asaga dhankan waqooyiga ka soo jiro oo la yiraahdo garoonka Quracda oo baliga Cirjiife ku dhagnaa oo aan asagana Cabdullaahi waxaad ka sheekaysay caruurnimadaadii meelihii aad ku ciyaari jirtay oo seeraada damacad inaad ku soo biirto cid ku gacan qabatay oo kooxaha weyn seeraada ku keentay miyay jirtaa niyo anoo seeraa oo wili aan seerbi soo marin baa din la yiraahdo Maxamed Yuusuf Qowdhan iyo Maxamed Nairobi baa 2000 iyo waxaan malaynay tahay 2006 ilaa 2005 meelahaas aan malaynay tahay baa koob socday waxay yiraahdeen niyo boorteeri kaalay noogal oo seeraada ah ana waxaan ku yiri niyo seeraa wili ma gaarin ma qaban karay ma iga deysaan boorteerigana xogaa waa ku fiicnaayo waxay ugu arki jireen anuu jiilka yararka ma aan sa u raaci jirin oo dhalinyaradii waa weynaayo xaafadeeda sida Kuuso oo kale Abdullaahi Fardiig iyo ragga aan ka xusi karo xasacoodir inay dhahaan raggaas ay jeclaayo waa loodka naga weynaa sida walaalkii maxaa hoos oo kale loodkiisa ahaayeen marka nimankaas raaci jiray oo goosh u galgali jiray oo marka goolyeeri baan ku wanaagsanaa markaas aan kubadda aan ka soo bilaabnay oo ahaa goolyeerina waa ka dheli jiray marka goosh kaalay noo galbeeyada koob seeraaya marka gamekii ugu horeeyay waxa malaynaya Comset baa la dheel bay ku aadanaayeen Homoboro marka Maxamed Yuusuf Qowdhan baa macallin ahaa waqtigaas niyo seeraada anoo aan seerbi soo marin ban boorteer galay kooxda Homoboro aad baad u mahadsan tahay wixii markaas ka dambeeyay Homoboro aad u ciyaartay kooxo kale ma aad haddana isla koob lamida oo waxaan u malayn waxa 2007 baa kooxda Fallujah waa markii ugu horeysay ay seeraa ku soo biirto waxayna ku dheelisay magaca Nabtel bay ku dheelisay Nabtel garoomada ku soo gashay garoonka Cawaali Stadium baan ayaduna boorteeri mar ku soo galay sidaas oo kaleeto koobka waxa xasuustaa Rabadaan buu ahaa waxaan la dheelinay STG Galcon ciyaartaasna Allah u naxariistay Abdixakiim Waayeel oo xoogga dalka yar ee dhahan la dhashay STG Galcon gool ka dhaliyay ayadoo ciyaartu socoto hafteenkii intuu sadhicin baa Rigoore waxa lagu galay ninka la yiraahdo Cabdiqani Nabtel baa Rigoore gacanta loo saaray oo taabtay marka Fallujah oo Nabtel ku dheelisay centerka waxa taagnaa Nuurdiin Ladane iyo ninka la yiraahdo Cabdiqani Nabtel oo adkaraysid difaaciid ugu adkaa gobolka Mudug soo maray ahaa Xasan Naafac oo malaynaya inuu Rigoore saar waqtiga Xasan Naafac baa dheeliyay Buraan Culuq baa dheeliyay ina Cabdullaahi Shiin marka geesi baa xataa ku soo gaaray oo boorteeri markaa ku jiray Cabdullaahi xulka gobolka Mudug marna fanaandeeda ma xirto ma lagaga yeeray gobolka
gobolka mudug funaanadeeda waa xirtay taariikhda kuwada waqtiga markaan soo galay 2007 adii waqtiga Ethiopian aaday 2010 ba wadanka dib ugu soo laabtay xaggaasi boosasaan ka imid waxaan ku biiray kooxda la yiraahdo Fallujah markaan ku biiray oo dheer koob u dheelay koobkii la qabay koobka gudoomiyaasha iyo koobkii macallimiinta baan Fallujah u dheelay dawladda hoosaan la dheelnay waxaan ku harnay waxaan maleeyaa bareecaan galnay sidaasaan dibciina looga wareejiyay koobka sidaas uga harnay wixii ka dambeeyay koobkii waxa la qabtay gudoomiyaasha oo waxa markaa gudoomiye sports aha gaabshe waxaan u wareegay markaa STG baan intaan u wareegay koobka Ramadaanka STG baan intaan u wareegay ayagu baan STG baan waxa uga soo wareegay kooxdii xaafadii Fallujah baan ka bacdi STG wareegay STG anoo heshiiskii noo wada socdo baan ka soo wareegay ayadana xagga iyo Homoboro soo wareegay oo go'aan ku qaatay inaan kooxda Homoboro ku biiro waqtigaas koobkaas Ramadaan buu ahaa koobkii Ramadaanka ahaa waa la qaaday kooxda Homoboro oo markii ugu horeysay oo Serie A oo aan toos aan uga dheelo koox aan uga mid noqdo si Fallujah oo kale Fallujah hal koob aan dheelay wixii ka dambeeyay waa ka soo wareegay oo kooxda Homoboro ku biiray Homoboro markaan ku biirayna koobkii ugu horeeyay baan la qaaday xulka gobolka mudug waa xirtay funaanadeeda waa laga yeeray 2012 baa laga yeeray oo aan u dheelay xulka gobolka mudug aan matalayay gobolkayga waqtigaasna wuxuu ahaa 2012 koobka gobolada Puntland bay ahayd waa weligeed kama dhicin gobolka mudug 9 dhibcood ma qaadan sanadkaas leerin wanaagsan oo dhalinyaro junior oo wanaagsan oo marka anagu aan soo kacnay sida Xaamud Dheer Allah naxariistay iyo dhalinyaro badan oo kamid yahay ninka la yiraahdo Bashiir Garaad Maxamed Ducaale lood iswada leeyahay baan ahayn raginaga weyn oo qorofar sidoo kale Fahmi Sajaale Adkafa Balaar ragaasi wateen oo gobolkana weli 9 dhibcood ma qaadan sanadka macallin waxa noo ahaa Asibiyaabi 9 dhibcood baan gruupka ka soo baxnay oo waxaan garaacnay Sool Sanaag iyo Cayn baa ka badnay saddexda SCC baan garaacnay Sool Sanaag iyo Cayn isku yiraahdo meel ka baxsan Puntland ma ka soo ciyaartay adigu waa ka soo ciyaaray koobkii Soomaaliland waxaan xataa aan intaan koobka Soomaaliland aan aadin koobkii degmooyinka Sanaag baa waxa laga yeeray 2014 baa mar labaad la qabtay koobka gobolada Puntland sanadkaas gobolka mudug waa ka haray oo hadee waxa uga haray leedin waqtiga badan baa joogay gobolka isku boos ahay macallinka aragtiis waxaan wadaynay leedinta kale ma sidii baa gobolka aan uga haray Highland gobol la yiraahdo waa nin geesi la yiraahdo adgaradiisi dhalinyarada kaambada ahaa geesi la yiraahdo oo dhex ahaa bilsoomistaan kaasa wuxuu ugu soo xiray gobolka Highland ani iyo Fidji asaga baa gobolka Highland aadnay oo 2014 beed gobolada Puntland xaga ay bari bay ku almiteediyeen Highland ay bleedinteedu joogeen bari baan muddo ku almiteeyay ka bacdi waa 2014 waqtigaas koobkii la qabtay oo aan gobolka Highland ba ka tirsanaa ka bacdi 2014 marka Highland dheelay oo aan koobkii gobolada Puntland dib uga soo laabanay baan boosaasan mar aaday xulka Highland wuxuu yiri gobolkiina waa u dheeshay Cabdullaahi oo kii gudoomiyaha saaxiibnahay nin ugu qaali ah oo la yiraahdo Maxamed Cumar Hargeyso baa wuxuu yiri inuu xulkii Sanaag xulkii baabaxayo oo koobka degmooyinka Sanaag u cirgaaba aadayay xulkii inaan raacdaan rabaa iyo waxaan ku yiri waa raaci lahaay xogaa arrimo family problem baa hayso ma tii karo adii boos inta joogay baa xulkii afar ku soo baxay wuxuu ku aaday gobolka Baran iyo markaa waxa soo baxay aan filayaa Ceelbuux gobol la yiraahdo iyo Sanaag oo cirgaaba koobka degmooyinka Sanaag waa markii sanadba markii Sanaag baa qabato marka koobkaas aan aaday sidii ugu maqaala caasimada Soomaaliya Muqdisho kooxa ka tirsanna waad ka soo ciyaartay maxaad ka xasuusataa aadistii aad aaday caasimada Soomaaliya Muqdisho Cabdi Qafaar oo ma santahay caasimada Muqdisho waa aaday oo koox la yiraahdo Jazeera hadda lagu magacaabo oo waqtiga la oran jiray Muqdisho United oo kooxda MCC horyaalka Soomaaliya qaaday Muqdisho kooxdii labaad ee Serie B weeye dhigeeda oo karafweynin la yiraahdo iskala kooxda oo Serie B weeye labada kooxood baa asaas la leh oo haddana Serie B bay dhacday oo marka hore ay dheelisay kooxdaasaan liigu yeeray yaraan saaxiibna abgaal la yiraahdo ugu yeeray marka Muqdisho anigu oo dheelin oo 3 bilood xariisnaa oo mushaarkan isku fahmay kadib Champions Puntland baa la qabtay oo kooxdeedii Homoboro
oo hadda aan ka tirsanayo kabtan ahay baa dib ugu soo laabtay oo dee xaggana anuuna ana safan oo ana dheelin stadium corners baan dib uga soo laabtay. adigu kubadda cagta booska ka ciyaartaa Cabdi Qafaar aniga booska aan ka dheelo aan garoomada kusoo galay seeraada waa 9 weeye laakiin boos markuu ay arkay macalinkayga aadka aan u jeclahay Maxamed Axmed Maxamed Nairobi baa wuxuu ii sheegay in aan ka dheeli karo 9 kaliya aan ku abooneen aan boos walba ka dheeli karo oo aan noomana qaban karo labada garboodna ka dheeli karo gadaalna ka dheeli karo qalbada dhaxana kusoo laaban karo marka no position boos walba ka dheelaa calaasan sida la yiraahdo qofkaas oo kale waxa la yiraahdaa filayaa joker maadaama aad tahay nin weerariyaan ah daafici kugu adkaad iska hor timaadaan ama is wajahdaan kuma aha Cabdi Qafaar inta waqtiga aan ka dheeliyay daafici ugu adkaa oo aan wajaho wuxuu ahaa nin la yiraahdo raaxay nin la yiraahdo buu aan waqtiga aniga fuluujo u dheeliyo difaaciyada ugu adkaa oo difaaciyada gobolka Mudug uguna la dhihi karo waa difaaciyada dilaaga ah ninkaas baa ugu adkaa raaxay la yiraahdo wahagaag guushaadii kugu fiicneed waayahayga ma xasuusataa guushaydii waayaha ugu xasuusta badneed uguna wanaagsaneed waa xasuustaa oo waqtiga aan kooxda Hombobaro kusoo biiray oo koobkii ugu horeeyay oo Rabadaankii 2011 aan la qaaday baa guushaydii ugu wanaagsaneed aan guuldaradii kugu xumeed waayahaygiina Cabdi Qafaar guuldaradii ugu xumeed waxay ahayd koobkii 2015 anigoo kabtan ah kooxda Hombobaro u dheeliyo ay Fallujah naga qaatay anagoo halfka fastiga hore hal iyo ever aan ku marsiinay kubaduna ay taacadi madow de wax walbana isbedeli karaan oo waqtigii dambe la soo laabtay kubadna laga dhaliyay boorteerigu uu soo baxay oo kubad madaxa yar jimcaale la kulma la yiraahdo ugu bareejay ka bacdiina bilisuun naga dhaliyay nin la yiraahdo deeqow oo koobka sidaana loo qaaday 2-1 waa guuldaradii ugu xanuunka badneed ee ahayd waqtigaas oo koobka aan siiyay inaan qaaday maadaama aan halfkii hore aan hal yeebar aan ku wareejinay oo kooxda aan ka awood badnayn oo meel walba markii la yiraahdo weerarka meel walba aan kaga diyaarsanay oo kaga awood badnayn kubadaana laga dhaliyay kubado waxay ahaayeen kubada counter attack taay difaaciyada soo dhaaftay iyo kubad kale oo bilisuun ah oo nin faul galo laga dhaliyay qaladkii kugu weyn waayahayga aad gashay inta kubadda cagta ku dhex jirtay ma xasuusataa qalad alaashan waxa sheegaysaa rid car oo kale rooso oo kale qalad aan qaadatay mise qalad aan albitray wax aan qalad noocaas oo kale waa dhacay oo wuxuu ahaa 2015 koobkii ay Fallujah naga qaaday finalka geemka ugu horeeyay aan rooso aan kooxdeeda ka qaatay oo hal game ka maqnaa markaas oo difaacan oo nayn ka dheeliyo oo difaac laad intuu ugu dhuftay annade kubadda qof markuu dheeliyana waa xamaasad gooniya leedahay iska xanaaqo aan siira albitra ima jeedin baa marka aan gacan saa ugu dhufta dharbaxa albitri baa arkay abshurooda qalaf baa ahaa oo albitri markaasuu waxaan filayaa garsooraha shanaad loo xiriir qaladka asaas sameeyo gacan ku dhuftay oo yarkaas waxa la yiraahdaa yar hadda tagay Cabdiraxmaan la yiraahdo difaaciyada gobolka uu adkaado ahaa oo wuxuu dheeliyay koox la yiraahdo Daala marka la dheelino 2-1 looga badisay marka qaladkaas oo ahaa qaladkii ugu weynaayo aan galay aan kooxdayda anoo kabtana roosa aan ka qaatay inta badan dadka kubadda cagta daawada qaasatan ku sugan gobolka Mudug waxay dhahaan Cabdullaahi Habas waa nin xanaaq badan oo garoonka markuu ku jiro waa nin hadii yacni foul lagu galo ciyaartooyga foulka ku galay la dagaalama adigu dhaliilahaas lagu soo jeedinayo aad uga jawaabi lahayd Cabdi Qafaar masda qof walba uu dhaliil uu leeyahay waqti way jirtay oo de xanaaqay laakiin sida hadda ay dadku ay u faalweedayaan oo sheegayaan oo leeyihiin xanaaq badan yahay waa nin garoonka inta lagu jiro rooso ugu fudud ku qaato laakiin Cabdi Qafaar dadkaas aragtidooda aniga ahaan shakhsi ahaantaydan sida aan rooso ku qaato oo kooxdayda aan mas'uuliyad aan u ahay way adagtahay Cabdi Qafaar banooni haddaan rooso qaadayana banooni regaltii oo caadi ah in aan ku qaato ma ahane banooni si aqliyan rooso kuma qaato qaladna qofka bilaadanka uu ka dhici karaa uu qaadan karaa kubadda markuu lagu jirana qofku wuxuu leeyahay waxa ka muuqato xamaasad iyo banooniyad iyo qofkuna malaa'ig ma ahan qalad uu dhici karaa qalad uu gali karaa laakiin mar walba waa is xakameeyaa
oo waxyaalaha dadku iga sheegayaan waa iska xakameeyaa oo in aan qalad aan galo badanaa waxaa jirta aniga oo qalad laygu galay in aniga aan ka hadlaysiiyo ama waxba aan samayn oo kaleeto qofku asagu xataa wax ugu dhufto oo aan laakiin waqtiyada aan markaa garoomada soo geliyay oo aan yaraa way jirta waqti aan xanaaq badna laakiin waqtiga hadda la taagan yahay iyo waqtiyadii 2015 wixii ilaa hadda kasoo ahaa 2000 iyo saan soo aaday 17 nin iga degnaa ma jiraan malaynaya gobolka dhawaan koob lagu qabtay labada gidi ee magaalada Gaalkacyo waqooyiga iyo koonfurta waxaad ahayd ciyaartoy labada dhinac ka dheelayay laba kooxna waa u kala ciyaarisay dareenkaaga sidee u ahaa markii aad qaybtan Puntland aad ka soo ciyaartay qaybtan Galmudug aad ka soo ciyaartay عادو قفار درانكي ورطورة أدبو وكعسنا ونا دقنا جوي وناكسنا وكجرني حقان دق حقان كاغو ربان كان أنو حقنا وقويقا كوحدي دي قنبو برو وكجفتي واحد ديلستي كوك استحقلك قبل كمدو وحن كدير نقرون في جي بي سي حاوة آذن dhankan kaleetana koonfurtan haddaan kaa warmo koox la yidhahdo Banaadir Daabshiil oo ayadana aan waqtigii muddo u dheeli jiray oo iyaduna kabtan aan usoo ahaan jiray baa dib garoomada ugu soo laabatay oo kooxda way dhisneed laakiin waa dhisneed waqtiyada aan ka tegay kooxda xoogaa habacsanaan kusoo dirtay marka maamulka iyo macalinka iyo baa kooxda isku fiicneen oo marka raggaas soo wacay oo dee waxay yidhaahdeen dee xaggana koob ka socda waa la soconayo kooxdaada qumudana u dheelisaa kooxdaadina waa kooxdaada hore oo dee waa ku baahanahay dee waqtiga aan dee gameka muhiimka xagga maalinta aad ku aadan tahay oo kooxda Humbar ay dheeliso iyo haddii isku soo aadaan labadeena game waxaan heshiis ku ah in aan dhanka kooxdayda aan aado oo kooxda aan kabtanka ka ahay oo dee weligeena ilaa hadda muddo aan 6 sano ka ahay kooxda Humbar marka labada dhinac waa ka dheelay oo dee inta aan dheelayay Cabdi Qafaar isku soo aadamin oo in حقنا عن كلن كويش وحقنا وكلن وجو آدمه اسكو آدم ودي حقنا كوحدة دي ديرس وحقنا كوحدة دي ديرس ما دام على بعض الدنبا حقنا كوحدة كابتن حقنا كابتن كوحدة وأها. دريم تيم كاي كوي تمن كدور. دريم تيم كاي كوي تمن عبد الغفار حدان كدورته بورتيري وحن دورتي ويس وبورتيري لو وقتي لو كوني لبي تمن كحلك قبل كمدو kooxda Humbar joogay oo Boortieri gobolka Mudug u fiicnaa waqtiga qaranka Boortieri oo ahaa baa Boortieri ah gudaha waxa ay taagan Cabdiraxmaan Faajuge iyo nin la yiraahdo Raaxay Cabdiraxmaan baa wuxuu yahay 4 Raaxay wuxuu yahay 5 duwi tare hadaan qaato duwi waxa uu ah fadhiyeen la yiraahdo oo marna tareega dheeli jiray marna duwa ka dheeli jiray baa duwa iga dheeliyo baalka kale oo tareegana waxa ay ah in la yiraahdo kaba qolof oo baleerinta gobolka ugu fiicnaa tareeyaasha gobolka ugu fiicnaana haddaan u soo laabto xaggan qalbada dhexa ah oo siiga waxa ay tahay in la yiraahdo shop oo dhalinyarada gobolka hadda soo baxday ugu wanaagsan ah baa sii ah waxa agtaagan in la yiraahdo kaliya mini oo daleerinta gobolka ugu fiicnaa macquulka ahaa dhexdii ugu fiicnaa waa oto ah diishna waxa iga dheeliyo waxa diishii haafaan la yiraahdo haafaa oo waqtiga Humbar aan ku soo gaaray haafaa baa diishii ah labada garbood waxa ah garab waxa ah in la yiraahdo shaakal oo gobolka Nugaalna ka dheelo Gaalkacyana noo yimaado kooxda Humbar ka tirsan garabka kaleetana waxa ah in la yiraahdo Muqtaar Miisi oo garab kale ah afka horena aniga waa tuuran macallin waxaan uga dhigtay macallinkayga aad kaan u jeclahay Maxamed Nairobi oo macallin aad baad u mahadsan tahay waqtigu aad noogu yaraaday awgiis intaasna waxaan noo ekaa wareysiga aan kula yeeshay waqtigaaga muhiimka aad siisayna waa kaaga mahadcelinayaa